xalay fiidkii hore ayaa dekada weyn ee magaalada Berbera waxa ku soo xidhay markab dagaal oo weyn oo ay leeyihiin midowga Yurub markabkaasi oo ay saaran yihiin ciidamo tiro badan haddaba saakaasi wixii hore ayaa xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliland sida wasiirka cadaaladda wasiirka hoggaanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhinaca amniga mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa markabkaasi fuulay halkaasi oo ay kaga qayb galeen aqoon-is-weydaarsi dhinacyo badan leh taasi oo lagu kulmaa in kor loogu qaado dhinacyada security-ga shuruucda badda booliiska iyo waliba mas'uuliyiinta xagga xukuumadda ka socday oo ay wada hadallo ka yeesheen dhinacyadaasi oo dhan halkaasi waxa ugu horeyn ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay kulankaasi ay maanta markabka guudkiisa ay ku qaateen wasiirka hoggaanka amniga ee Soomaaliland iyo waliba wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland iyo wixii qarankan u baahnaa wixii aan soo qabsanayna waa sheegnay waxaad nala qabatayna waa sheegnay waxa aan muxuu halka aan ka soo jeedinay iyo waxa idinku soo bandhigteen inta waxaan filayaa inaynu midhaheega sida ugu dhaqsaha badan taclanka Netherland iyo EU-da oo tababar iyo aqoon-is-weydaarsi ciidamada badda iyo gobolka iyo maamulka bahda cadaaladda iyo arrimaha gudaha ayaa siminaar ka dhacay dood cilmiyeed lagu falanqeynayo arrimo fara badan si loo horumarin lahaa ciidamada badda intaasi kadibna mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ayaa dhankooda iftiimiyay inuu faa'iido weyn u yahay tababarkan ay bixiyeen ama seminaarkan ciidamada badda ee midowga Yurub kaasi oo khaasatan si gaar ah u siinayeen ciidamada badda ee Soomaaliland iyo waliba booliiska qaybihiisa kala duwan waxa laga hadlayay dambiyada ka dhaca badda iyo coastal guardska ciidamada badda iyo xeerarka la xiriira iyo waliba hay'adaha kale la halmaala sida hay'adaha law enforcement agency-ga booliiska iyo security-ga iyo garsoorka cadaaladdu ay ka mid yihiin marka wuxuu ashir cilmiyeed ama seminar waxa loo yaqaano la isku idaarsaday aaraa inagu waxaynu hayno iyo iyagu waxay keeneen waxa ka furmay aqoon-is-weydaarsigaas oo ahaa shuruucda badda iyo aqoon kororsi ciidamada badda iyo sidii badan looga faa'iideysan lahaa ciidamada militariga ee badda ee Soomaaliland maanta waad arkaysaan maanta waxaan u maleynayaa inuu aqoonsigii kuurkana soo saaray tababar ciidanka ilaada xeeb ay la qaateen ciidamadan iyo naaforta tababar sida dadka loo badbaadiyo berigii hore waxa lagu gali jiray dooyo iyo markabka laakiin hadda waxa lagu galay tababarkan dooyo markab iyo helicopter kuwaasoo intuba ay doonayeen in ay qabanayeen Yaasiin Jaamac Ali har walaal Yusuf magaalada Berbera